haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan cafiir. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo cabdikariin markii ay sheekadan ku dhacaysay wuxuu u dhaxeeyay da'da 12 ilaa 13. cabdikariin iyo family-giisa waxay imaadeen magaalo aad iyo aad u qurux badan. magaaladaasina iskool ayaa laga geeyay cabdikariin, laakiin markasta iskoolka waxaa lagu eedeyn jiray cabdikariin in uu soo daaho. maalin ayaa wuxuu go'aansaday cabdikariin in uu subaxii hore soo baxo si uu ciyow iskoolka u tago. nasiib xumo cabdikariin wuxuu waayay bas uu soo raaco, laakiin wuxuu go'aansaday inuu soo lugeeyo iskoolka inkastoo aad ugu dheeraa. cabdikariin inta uu wadada ku jiro wuxuu go'aansaday inuu iska daawado magaalada siday u qurxan tahay, wadadana si fiican uu u kala barto. wadadii si uu soo socday uu ka caajisay, kadib wuxuu go'aansaday inuu dhaga gashto ama earphone uu dhaga gashto. kadib earphone ayuu dhaga gashtay, wadadii ayuuna sii lugeynay. kadib wuxuu maqlay shanqar, kadib wuxuu go'aansaday inuu shanqar dhan uusan maqlin. codkii ayuuna dheereystay, banaankana wax dhan kama maqlaynin, keliya wadadii uu ku socday ayuu fiirinayay. arrinkaana cabdikariin halis badan ayuu geli karay, sababtoo ah waxaa macquul ah in uu baawur dardaro, laakiin indhaha ayuu ku taxadiraya asiga, dhagahana wax ayuu ku dhageysanayay, wadada ayuuna iska lugeynayay. kadib cabdikariin wuxuu arkay guri duq ah oo hal albaab leh, wax daaqadna aan lahayn. wuu la yaabay cabdikariin gurigan, sababtoo ah gurigan wuxuu ahay magaalada guriga ku yaala keliya ee jajabsan. laakiin kuma mashquulin cabdikariin, wuuna iska sii socday. xoogaa markii uu socday wuxuu maqlay qof dumar ah qaylideeda. kadib cabdikariin dhagihii ayuu iska baxshay, wuxuuna la yaabay asigoo earphone wata qof bini'aadan codkiisa sida uu ku maqlay. wax yar kadib wuxuu maqlay qayladii oo aad u daran haddana. markii horena qayladii way ka awood badneed, aad ayuu u naxay cabdikariin, laakiin iskoolka wuxuu kusoo bartay qof qayladeeda hadduu maqlo inuu 911 hore ka waco, booliiskana si degdeg ah ugu waco. kadib cabdikariin wuxuu go'aansaday marka hore inuu jeekareeyo, kadib uu booliiska waco. wuxuu soo galay gurigii duqa ahaa, albaabka ayuu furay. wuxuu arkay albaab kale gudaha kusii yaalo. baqbaqa ayuu ka fiiriyey, sababtoo ah albaabka ayaa baqbaq lahaa. baqbaqii albaabka markuu fiiriyey wuxuu arkay wax uu aad ula yaabay cabdikariin. wuxuu arkay nin wata dhar aad u wada madow, wejigana maaskal ugu jiro. sidoo kalena ninkaas gacanta wuxuu ku hayay buris. hortiisana waxaa joogtay naag aad u dhiig baxaysa oo qaylinaysa. naagtiina maantoo dhan waxay ku qaylinaysay haydilin oo ku barya iska keysiidaa. kadib cabdikariin aad ayuu u naxay, wuxuuna go'aansaday isla markiiba inuu waco booliiska. kadib cabdikariin si aan shanqartiisa loo maqlin meeshii ayuu ka soo sigtay. jaranjarada qaybta sare inuu sii fuulo ayuu damcay, laakiin cunto aad u badan ayuu soo cunay, wuuna awoodi waayay wax badan inuu ordo. aad ayuu u naxay, asigoo neeftuuraya ayaa la maqlay. ninkii ayaana banaanka u soo baxay dileega ahaa. kadib cabdikariin wuxuu dhahayay aniga cod ayaan kaa duubay, booliiska ayaan u sheegayaa haddaa wax garaafi gaarsiisid, laakiin haddaa iska kay dhaaftid qofna uma sheegayo. ninkii dib ayuu u laabtay, albaabka ayuuna xiray. cabdikariin aad iyo aad ayuu u naxay, wadnihiis aadna ayuu u garaacmayay, wuxuuna ka baqayay ninkaan mar labaad inuu kusoo baxo. laakiin si degdeg ah ayuu hoolkii ugu soo baxay, isla markiina wuxuu wacay booliiska. wuxuuna u sheegay in uu arkay qof la dilayo. booliiskii ayaa si dhaqsi ah ku imaaday, waxayna baareen gurigii lagu sheegayay in qof lagu dilay. nasiib xumo booliiskii gurigii waxba way ka soo waayeen, sababtoo ah ninkii mar hore ayuu ka baxsaday. meeshuu ku baxsadayna waa la fahmi waayey, laakiin booliiska meesha waxay ku arkeen qof dumar ah tinteeda iyo dhiig. cabdikariin arrinkii aad iyo aad ayuu ugu walwalay, cabsina aad ayay u gashay, sababtoo ah ninkii lama soo qaban. wuxuuna ka baqay ninkii inuu mar labaad u soo laabto oo asigana la dilo sababta uu u sheegay awgeed.
maalinkaas asigoo si subaxdii hiiradii gurigiisa kasoo tagay ayuu iskoolkana ka daahay sababta uu wadada kusoo arkay awgeed qofna ma uusan u sheegin. hadda Cabdikariin 21 sano ayuu jiraa, markastana arrinkaas oo kusoo dhacay uu kusoo qarwaa aadna wuxuu ugu baqaa ninkii inuu u imaado kadibna uu dilo. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore noola joogtana videoga like garee.